wargelin muhiima waxaynu ku wargelinaynaa saaxiibadii noogu bartay dhanka YouTube-ka inaynu ku soo kordhinay idaacadeena Hirsamo page aynu ku yeelano Facebook-ga page-kaasi oo kamid ah page-ka ay idaacadu leedahay page-ka Radio Hirsamo fadlan haddii aad doonayso inaad kamid noqoto saaxiibada page-kaasi ku xiran isla markaana la socdo macluumaadyada aan soo bandhigno waad like gareyn kartaa adigoo searching-ka Facebook-gaaga ku raadinaya Radio Hirsamo kadibna waxa ku soo bixi doona page-ka inkastoo page-ku aanu wali habaysnayn balse waxaynu heli doonaa in asxaabta like soo tiraada ee page-keena ka mid noqoto Radio Hirsamo hirka nabad guusha ku soo dhawaada barnaamijkeennii kaabaha oo doriska ee idaacadda Hirsamo sideed tallaabo oo aad kaga guulaysan karto carqalad kasta haddaba waa sideedaasi ayaanu maanta ka hadli doonaa war saaxiibow ii waran xaaladaada warkiisiinayow ninkii hanad ahaa intee buu ku dambeeyaa yuusufow warniyow aad baan u fiicannahay xaaladeenana waa dhegdheg ninkii aad taqiinay horta murugadii iyo xanuunkii iyo waxyaabihii uu sheegan jiray waxaad moodaa markan inuu gebi ahaanba waxaasi ka waabtay oo sidee calashaan ninkaasi ma murug iyo eedeyn iyo cabashi iyo qayle iyo wax barbaleem aan loo baahnayn iska diin karo haa wallaahi xaqiiqdiiniyo waxaad ba arkaysaa markuu kula hadlayo adigaba dhiirigelin hore uu ku sii gelin calashaan sidee saaxib wallaahi ma naqaananiyo laakiin waan isla aadaynaa ee diyaar ma tahay haa saaxib inoo wata hadaba waan u tegaynaa wey noo waran bal saaxiibow hanadow warkaaga keen bal maxaa kaa cusub waan ladanahay saaxiib khayr badan wallaahi farxadayda farxad bayba dhashay niyahow meel maad heshii sheeg bal waa faraxsanahay baad ku jirtaa wax si fiican inuu ma fahansiinaysid haaniyahow farxaddu waa shay lagama maarmaan ah waana mid loo baahan yahay mana lagama maarmo farxadda marka aan ogaan horta moobilka waan isticmaalaa mogtahay haa aad isticmaasha taleefankaaga marka niyahow idaacad meeshaan oo YouTube-ka ka soo gasho oo Hirsamo Top Media la yiraahdo barnaamijyo dhiirigelin kaliya unbaaba ka baxa sidii aan noloshayda ku horumarsiin lahaa marka barnaamijyada sida aan u dhageysanay waxaan ba noqday qof isku qanacsan haddana farxad badan marka barnaamijkaasi aan iskula diyaar garoon waa cajiib iyo fursad kale niyahow barnaamijka maxaa la yiraahdaa waxaa la yiraahdaa barnaamijkaasi kaabaha oo doriska waa cajiib kaabaha oo dariska dabcan waa barnaamij aad u wanaagsan marka inaan dhageysano weeye aan isku dayno sida waxyaabaha dhiirigelintii xigmadaha ku qoseeya ee looga shido aanaan u dhageysano weeye haa saaxiibo sidaasi baan isku ognahay sideed tallaabo oo aad kaga guulaysan karto carqalad kasta sida aad ula dhaqanto carqaladaadu waxay qeexaan noloshaada qof kasta oo inaga mid ahay waxa uu la tacaalayaa carqaladda noloshiisa haysato oo ka hortaagan waxyaabo badan oo uu qabsan lahaa taasoo ay dadka qaar intooda ay aaminsan yihiin inay tahay wax aan xal loo heli karin ay iska samraan taas oo ka lumisa awooddii fikir iyo ficil ay kaga taqulisi lahaayeen carqaladda haysata iyaga oo ka laabta gacmaha daawadana meesha ay u kaxayso carqaladaasi waxaa kaliya ay tiigsadaanna waxa uu noqdaa calaacal joogto ah iyo gudcur uu qofku ku xeero noloshiisa oo dhan maad ilowday inay noloshu tahay imtixaan iyo shaqo taas oo mararka qaarkood ah hal xidhaale ay kaga guulaysan karaan in yar inta badan dadyowga guusha ka gaaray noloshan ee ka tegay dhaxaltooyo maguuraan ah oo ay intifaacsadaan malaayiin qof oo ku kala nool daafaha dunida kuwaas oo aanu magacooda iyo waxtarkooduba aanu dhimanin ilaa marka ay dhintaan kadib iyaga oo ka waxtar badan kuwa badan oo helay waqti badan oo dunida ku noolaadaan laakiin noqday rabshad wadayaal nololeed dadka ku xeeran dhibah in nafahoodana cadaab iyo cudurro joogto ah u horseeda qaladu ka mid tahay sunnaha nolosha waayo rusushii iyo nebiyadii naxariis iyo nabadgelyo guudkoodu ha ahaatee ilaahay subxaanahu watacaala soo diray waxay ahaayeen kuwa la kulma carqaladaha kuwaas oo ka carqalada badnaa dadka ay la noolaayeen waqtiyadoodii dhibaataduna waxay inoogu timaadaa si aynu wax uga baranno wana dabaqno nolosheenna dadka intooda badani waxay ku mashquulaan dhibaatada iyaga oo hilmaama
casharadii ay ka bar carqaladuhu nolosha kama dhammaadaan si xal lagu dhaafo ayaa jira. U fiirsasho iyo falanqayn. Inaad u fiirsato oo aad falanqayso carqaladda ku haysata waxay kuu sahli kartaa inaad si fiican uga bogato dhibta iyo xagga ay ka timi, deetana si fudud aad ugu siibi karto xididada wax walba. Bilowga xalkiisu waa fahanka. Haddii aanad nolosha fahmin, weligaa waad jahwareersanaan. Haddii aanad fahmin shay aad isticmaali lahaydna weligaa ka faa'iidaysan maysid. Si aad wax u fahantaana waa inaad falanqaysaa oo aad baaritaan qoto dheer u gashaa. Mar walba diiradda saar dhanka wanaagsan. Iska ilow inaad ku mashquusho dhibaatada carqaladdii kuu horseeday, waayo taasi waxay kaa luminaysaa awooddii iyo kalsoonidii aad ku abbaari lahayd, kagana takhalusi lahayd isla carqaladda, waxna kaga baran lahayd. Markastoo aad dhanka wanaagsan ee iftiinka leh wax ka eegto, horseed ayay kuu noqon kartaa niyad wanaag iyo in aad sii wadan karto halganka aad kula jirto carqaladaha noloshaada ku xeeran. In aynu dhanka xun wax ka eegno waxay inagu sababtaa in aynu awood u yeelan weyno helidda xal aynu kaga gudubno isla carqaladda. Markastoo aad ina dhanka wanaagsan wax ka eegtaa waxay ku dhaxal siinaysaa inaad hesho xalal kala duwan. Cilmi baaris ama research ay samaysay in jaamacad ku taala dalka Mareykanka ayaa tijaabo ay samaysay ku ogaatay in markuu qofku dhanka taban ee aan wanaagsanayn wax ka eegayo aanay suurtagal u ahayn inuu maskaxda ka shaqaysiiyo oo uu baaro xalal kala duwan si uu u helo xalka ugu habboon. Si kaliyaad uu dhan qura wax ka eego, taas oo sabab u noqota inuu qofku samayn kari waayo xal ku habboon ka takhalusidda carqaladda ama uu u qaato go'aan uu ka qoomameeyo. Halka dhanka kalena la ogaaday in markuu qofku dhanka togan ee wanaagsan wax ka eego uu awood u yeelan karo inuu maskaxda ka keeno fikir iyo xalal kala duwan oo uu u horseedi kara inuu kaga gudbo carqaladaha. Ilaahay waxaynu ka helnaa hadba wixii aynu ka filanno, wanaag iyo xumaanba. Wanaaji filashadaada aad nolosha ka qabto. Markasta rajo yeelo oo ha quusan. Rajadu waa xanuun bi'iyaha dhibta iyo werwerka nafsiga ah. Markastoo aad rajo leedahay waad ka murugo yartahay marka kale. Quustu waa albaabka ugu horreeya ee laga galo guuldarrada iyo werwerka joogtada ah. Rajadu waxay ku dhaxal siinaysaa inaad lahaato calool adayg, iyo si kasta oo ay xaaladdu u adag tahay inaad quusataana maaha dhaqan wanaagsan. Waayo ogow inuu Alle ina faray inaynaan ka quusan raxmaddiisa. Taasi waxayna tusaysaa siday muhiimku tahay in la ahaado rajo si kasta oo ay u madowdahay noloshu. Ogow in uu habeen kastaaba ka dambeeyo iftiin maalmeed qurux badan, dhibaato kastaana ay ka dambayso nolol fiican. Carqaladdu haddii aanay ku dilin waxay kuu noqon doontaa sheeko aad ka sheekayso maalin ka mid ah maalmaha noloshaada adduunyo. Baro xirfadda xalinta khilaafaadka. Inaad barato xirfaddan waxay kaa caawinaysaa inaad wajihi karto carqalad kasta oo ku soo wajahda, xalna u heli karto. Aqoon in aad u lahaato xirfadda noocan oo kale ah waxay kaa caawin doontaa qaybo kala duwan oo noloshaada ah. Ka warqab naftaada. Markastoo aad kor u qaaddo ogaanshiyaha iyo ka warqabka naftaada, waxaad u dhowdahay inaad ka guulaysato carqalad kasta oo soo wajahda naftaada. Dhibaatada ugu weyn ee aynu inta badan kala kulanno carqaladuhu waa inay hoos u dhigaan ka warqabka nafeed ee shakhsiga. Baro xirfado kala duwan. Markastoo aad kor u qaaddo heerkaaga aqooneed ee aad kororsato cilmi, waxa aad ka gudubtay oo kaa go'ay dabar ka mid ah dabarrada jahliga. Dunidan aynu maanta joogno, waxa ugu weyn ee qofku lagu qiimeeyaa waa xirfadaha uu yaqaano. Sababtoo ah waxaa la ogyahay qofka uu ka xirfado badan yahay inuu ka xalin ogyahay dhibaatooyinka noloshiisana awood u leeyahay inuu maareeyo.
dhiirigeli naftaada. Inaad dhiirigeliso naftaada mar walba waa shay aad ugu muhiim ah noloshaada, iyo guulaha aad ka gaari karto naftaada oo aad dhiirigelisaa waxay kuu horseedi kartaa hanaan nololeed oo wax soo saar leh. Samayso caawiye. Helidda shakhsi kaa waaya aragnimo iyo aqoon badan waxay kuu fududayn kartaa inaad ka gudubto carqaladahaaga. Qofku caawiye oo ku siiya talooyin dhaxalgal ah wuxuu kuu fududayn karaa ka gudbidda carqaladda. Baadidoon oo ka agdhowow dadka aad bidayso inay noqon karaan kuwa awood u leh inay kula xaliyaan carqaladahaaga. Awoodda carqaladahaagu kaama weynase adiga ayaa dooran kara inaad isku daciifiso oo aanad waxba ka baran, dhulkana kula gasho oo ay adiga ku burburiso noloshaadana baabi'iso, ama aad wax ka barato kuna dabaqdo noloshaada oo aad ka dhigto kaabadihii fikta sare aad ku gaari lahayd. bal aynu wax yar ka taabanno tixdani taabanaysa qofka iyo siduu ugu gudbi karo carqaladiisa. Waxayna leedahay naftaada markaad habayso, nitaaqana aad u diiddo, naruurana aad la doonto, nuurkii noloshaad heshaayo, neecaw baad dugaashataa, naxaliyo xumahana nacdaa, naqdoglana aad degtaa. Waxayna taasi tibaaxaysaa in noloshu tahay in wax aad u dhib badan islamarkaana si markaad u eegto fudud. Haddaba barnaamijkeennii kaabaha oo dariska maanta waynaga intaa. Waad kala socoteen idaacaddeenna Hirsamo. raadiyow Hirsamo. Hirsamo Radio waa idaacad had iyo jeer u baahisa haqabtirka bulshada. raadiyow Hirsamo waa idaacad ka hadasha arrimaha bulshada iyo horumarinta nolosha qofka. Inta badanna waad nagala socon kartaan channelkeena YouTube channelka ee Hirsamo Top Media. raadiyow Hirsamo, madasha cusub iyo horumarinteeda. raadiyow Hirsamo.